السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي qiimaha badan ku soo dhawaada muuqaal cusub. Muuqaalka maanta wuxuu ku saabsan yahay dhacdo run ahaantii aan garanayn waxaan ku tilmaamo. Waa mid kulansatay wax waliba oo qof bani aadam ah kicin kara dhiiggiisa. Dhacdo markii hore ku bilaabatay geerida gabar yar oo si aan la garanayn iyadoo ku dhimatay la helay meedkeeda, balse baaritaanadii xigay ay daaha ka qaadeen siro aad u xunxun oo ku dhowaad 30 sano la qarinayay. dhacdadan ayaa cirkas ku shareertay kadib markii documentary laga diyaariyay laga soo daayay barta Netflix. Falcelinta ku dheehan niyadjabka ay ka bixiyeen dad badan oo daawaday ayaana ku muujin kara heerka xumada ay gaarsiisanayd qisadan. Waa qiso aad u dheer oo waxaan u kala qaybinay laba qaybood. Waxaan rabaa in aan mid kugu kala dhigdhigo ku dhowaad 30 sano wixii sir ah ee qarsanaa. Sida aad adiguba arki doontana waa mid isku noqonaysa oo u baahan in si fiican loogu koorgalo. سادرتيد سيادن محان كور هذا نوغا هارين oo aadan baska uga dhicin waxaan filayaa in aad u diyaar garowday. waxay ahayd xilli dambe habeenkii koox dhalinyaro ah oo maraya mid ka mid ah highwayada magaalada Oklahoma City ayaa waxa dhinaca laamigan weyn ay ku arkeen wax u muuqda jirka qof bani aadam ah. isla markiiba inta ay gaarigoodii ka soo degteen ay eegeen wixii meesha yeelay. durbadiiba ay dul istaageen waxay noqotay gabar dhalinyaro ah oo iyadoo u muuqatay in gaari uu jiray oo meeshii ku tuuran. markiiba gabadhii yareed waxaa lagu cararay isbitaal meesha ka dhaba waxaana la bilaabay in xaaladeedii lala tacaalo. waxyar kadib markii gabadhan la geeyay isbitaalkii waxa yimi saygeeda Clarence Hughes oo isagu xogta xaaskiisii u gudbiyay dhaqaatiirta wuxuuna magaceedii ku sheegay Tonya Hughes. Tonya waxay ka shaqayn jirtay oo ay dancer ka ahayd club ku yaala Tulsa waxayna haysatay canug 2 jir ah oo lagu magacaabo Michael. ilaa markii Clarence uu yimi isbitaalkii dhaqaatiirtu aad uma cajibin qaabkiisa. ugu horeen Clarence wuxuu u muuqday ugu yaraan in uu jiro 2 jibaar da'da Tonya. sidoo kale dhaqaatiirtii waxay qayb badan oo jirka gabadhan yar kamida ay ku arkeen nabaro iyo dhaawacyo aan ahayn kuwii la qiyaasayay in ay shilkii ka soo gaareen. nabaradan waxay ahaayeen kuwo muddo ku raagay jirkeeda waxayna u muuqatay nabaro ay ka dhaxashay jir dil loo geystay ayada. kadib markii ay Clarence arkeenna Alore aad ay uga shakiyeen. inta waxa u sii dheeraa Clarence cidna uma ogoleen in ay gabadhan soo booqato. xilliga uu isbitaalka ka maqan yahayna wuxuu kalkaaliyaashii kula dardaarmi jiray in cidna aysan u qolkeeda, balse intooda badan hadalkiisii ma dhageysan jirin oo dhowr jeer waxay u ogolaadeen in gabadhan ay booqdaan hablo ay iskala shaqayn jireen kalaabkii. nasiib darro 5 maalin kadib Tonya waxay ku dhex geeriyootay isbitaalka. gabdhihii asxaabta la ahaa Tonya ee ay iskala shaqaynayeen kalaabkii ayaa markiiba waxay bilaabeen in ay raadiyaan reerka gabadhan si ay malaha u wargeliyaan geerida gabadhooda maadaama ay iyagu horay aysan u arag reerkeeda misna haddeer aysan isbitaalkii ugu iman oo saygeeda oo kaliya uu joogay. nasiib wanaag mid ka mid ah gabdhihii ayaa waxay heshay nambarkii hooyadeeda